jirkaagii hooyo waxaan ahay laga jaray hooyo jidhka midaan hooyo waan ku jecelahay asxaabteeda qaaliga ah waa salaamantii meel walba caalamka ka joogtiin gaar ahaan asxaabta janalkeyga ku xiran salaam kadib waxaan jecelahay inaan idin soo gudbiyo macnaha dagaal yar oo laisku caynayo oo dhexmaray Farax Kaftan iyo magaceeda Xawkiin iyo gabar kale dumaashadeeda ah haddaad danaynaysid waxyaalaha qaar na dhageystay sida fanaaniinta isbaabi'inayo subscribe ku qabo saaxiib share iska bixi like-tana saar lacag kuma fadhido insha Allah marka aan idin bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim sheekada qisadii oo kooban oo koob ku jirta aan maanta idin wadaa fanaaniinta markii ay xoogaa oo horta waxaa la yiri laba qof oo isqabto oo inta ka baxdo ama Netherlands ama Sweden ama meel kale oo ka baxo oo Ingiriiska cagta geliyo waxaa la yiri asxaabey si ay ku kala tagaanba waa la kala dirayaa subxaanallah waa sheeko u qaas ah wadankaasi London naagaha jooga dhan waa maxay dhahaan baashi waxa waaye maxay dhahaan naagaha oo kelinimada ku nool oo bilaa ninka ah waaye nimankana sidoo kale qodobsareed la ku adeegtaa maalin reer dhisan waa dhif iyo qaliil nin fanaan ah oo maanta reer leh oo lagu hooydo laga sii hooydo ma jirto hooyo kastoo fanaanada ka mid ah iidan oo lagu hooydo laga sii hooydo ma jirto wixii dhanba waxa waaye igiya saan isku daba maraayan saan si kale uma taqaanida marka asxaabe Farax Kaftana inta ka guurtay waxay ka baxday Holland waxay deegaan u raadsatay iyagana ay kusoo dhaweeyeen meeshaas la dhahayo London kadib waxaa dhacay meeshii tagtay oo iska heesaysi jirtay waxay ku birtay howladan oo maxaa la kooxda uu hogaamiyo oo Kormahdi ee soo dhigo maxaa la musalsalada filmaanta af Soomaaliga ay soo dhigo kuwaas iidan iskaga jiri jirtay iyadoo meesha iskaga ladan oo ku asturan oo ku xeesato waxaa fanaaniinta qaar ka mid waxa ka jira oo dabeecadda ay ku xun tahay dabeecad la'aan laga sheegtay nin iyo naag bicid deynaysa aansan jirin waa Lucky Xaaji Waceys dadka intay isku dirto ee haddana kala dirto ee haddana isku keentaa ee haddana heshiisisaa waa aqliga daqon oo macnaa meeshaas ikraadis ma aqaan wixii ka galay marka Lucky gabadhan oo toosan oo reer riwaayadaas ummadaas baxsanay oo dhigay ku dhex jirto iska degan Lucky afidneysa ka soo baxsatay banaanay soo joojisay iyadii Xawkiin markii hore Xawkiin ay ka soo bixisay Xawkiin iyadoo friend ah oo saaxiibo oo saas isku dadku isku baabiinayo caynayo oo isku dhajinayso haddana Farax Kaftan ay ku soo dartay waxaa yiri ummadii laqdaw ku heshiisa laqdaw ku kala baxaan Farax Kaftan waxay isdhees Soomaalnimo macnaa meel aw Kormahdi dhinaciisa waxa laga tus inay qof xun tahay waa ka soo tagtay gabadhaan ku soo biirtay maxaa ka dambeeyay maanta idan cajaladeeda loo duub garbasaarteeda madax loo saaray iyagoo iscayna isbaabiina dhageysta waxaan hay saaxiibiyaa kadib la sheeka noo ahaatee soo qaw horta ko waxa idin tusaa Farax Kaftan oo ku caysay oo caytamaysa magaceedii Xawkiin daasho waxyaalaha aniga aan ku hadlay iyo cilaamadaha aniga aan sheegay naagta aan heesto iyo dadka aniga aan heesto way is yaqaaniin wayna og tahay waliba ay heblaayo gooni ay juuf ducey waa istaqaanaa abay ducey adaan ku heestaa waxyaabaha aan kugu sheegayne adiga waaye cilaamadaha iyo inta ku taqaano iyo inta isku keeno og kelmadaha adi aan ku isticmaalayo oo marqaati ka ahayd aan ku taqaano oo ku wada qoslayo asxaabe waa soo daawateen Farax Kaftan oo macnaha caytamaysa waxay caynaysaa iidana Xawkiin ay ku leedahay ducey aad tahay ducey hadal ma ku banaana duceyda la caynay ducey iyo dhalo waxay ahaadaanba kole waxay isdhaamaan male fanaan marna waa isguursadaan marna waa iscaayaan marna waa iska zineystaan meel loo raacaaba jirinba fanaan magaciisu waa fanaan baab shiraay mar kulli saqajaankiisu waa naagta la qabo oo fanaanad ah oo nadiif ah oo iga dhex gashane si lagu furo waa la furaa hadda ka hor waxay baandadaas macnaha hadda baandada is haasto u weyn tahay magaceeda tan Lucky iyo Xawkiin
iyagoo naagoweyn waxay ficli jireen baabi'i jireen ximi jireen baashii kale faadimiina goomaari jirtay eberka dhigi jirtay waxaa hadda iga isku caynaya kulli iidaa lagu caayi jiray faadimiin way iska weynaysiisi akhli reer magaalnim faadimiin naag reer magaal waay oo u gooysaba iga dhacayaankan soo yaaca oo marba hees dadoo ku dhigay maxay isku qabsadeen faadimiina iyo laki xaaji waxay isku qabsadeen heestaan adi milihid aad kusoo ceshanoosid ood soo cusboonaysiisi ka har sax waay heesaa dadaa kusoo shihiid dadaa qalash soo geli dadaa soo bandhigtay maya laki waxay ku ooynaya ilaa waa heesa war heesta adi milihid walaashaya leh كهر ولاش قبل ده صع صوتي قبل وكرامة دله فاضم قاسن ناس اللي هاي أنا اسكو هاستين ويا مرك شكل ماشي كبلاد أبايلي دبي عدلاي ماشي بحفك تريب إلا يستعنا لسومان واتقانا يقدم كوبي وينو ما أنت ده فيوران صوت لكل برجر كلا صوت صوت لقيس ما بحكي شاناي أول كل حشوجر ده كل حشوجر وحال يجر هبلا حس ما اسمه سمينا اللي يجر هذا أبلو فانانو درع هذا ما أنت كنت برجر سيكسو جرسوا بكيني هبلا وضد كارما يقاني كوبي صومال هراس ويري إن يوتيوبر كوينا سيكي إذن شيء صاحبي هلا مركا waxay ahaataba maanta naagtan dad ciiku caysay si ka muxuu Soomaaliya koobi atiinu yiri koobi iyo macna bread uu yiri ana koobi idin koobi bread zelf isku meeshii le waa halkii hadal le waa mafahmay farax kafta way caaytantay waa baxday haddana daawasho waxaan soo gashay xabiibtii kala iidan oo soo qaaday heesii hore oo macna goomaar oo riwaayadaha lagu dhigi jiray oo youtuberka ka buuxo ay soo qaadatay iyadoo indhaha iyo afkii adduun gadgadinaysa fakh foodlee shaytaan jir aad u maleysay daawasho aan iidan واسو أركتين أصحابتي قيمة خايا مدن حاوكين أو أفك سمك إندها أدون قف تاسكو هايسو أضمو دلوع يراد صبح قبل إذا هايستان إذا بكسي وين تايبا أو قرولو هاي علمو وايلا دهاي قراب نمي فرين ألو عينو يا قبل دان كفتم حلو عينو يا فرين كيدا هيس لا سوقاتي ألو عينو يا فرين عيب مقلا أنا صومالي حيد هذا سيحن كنولاشو سحر واك درنيا إلا فراكو دانتبو انت نيك اسكو بهدل لها اسكو كرتم لها او حرو اكاسا ميسلا اصحاب فري لغا ديغا كو فيعن marka farax kafta waxa lagu caynaya ma aqaan meesha iska arkeen biyo hoostooda iska arkay furinka lagu caynaya xawkii walaashe heerkaas inay ka weyntaa uma leejiri ma aha inay waxyaalaha qaar oo basiidka isaas gabdhaha macna culus ee agteeda ka ahayd laakiin hadda aabahay macluumadeeda furaha u rogtay yaa waxaa ma baashiya kala goysay gabdhaha iyagoo isku fiican aawti laki adduunyadan baabi'inaysaa ka dambaysa ma fahmay marka laka waxaa gabdhaha waxay jeceshaa inay rikaatayso oo iyada ay hormuud ka dhigto iyada ay hogaamiso oo xukunkeeda iyo taladeeda le lagu socdo qofkii kasoo horjeeda waxaa waaye saan oo kale ku sameynaya adduunyada dhan kusoo xiray inta dagaal laki hoostaada allah kaa siiyo ninkii aad kusoo hoytaabka usaa ilmaha nin macruuf ah inta bixi oo gurtub taariikhdaas leeyahay waa la yaqaana markaas xawee xawkin intaas oo igala weynad walaal ina macna gabar Soomaaliyeed aad saas isku caysin talabaad adigaba meeqsana garoob aheed waxaan waa calaf meeqsana aad garoob aheed adigaba macna meeqsana garoob aheed xawkin walaal ina garoobnimo dadku caysid oo la furaa minay falaaxooda naag fiican waa la furaa inaad tiraahdo ma ahayn gabadha markay Holland joogto Netherland joogto reerkeeda waa u dhaqnaa gabar sharaf loo degan oo asturna ahayd gabdhahan reer cadcadka waay gabarta aad maanta nasabnimo ku sheeg nasab daro lagu sheegayo dadka cadaanka ka mid tahay idii faadimiinina idinka ka shaqeey inay suxeeyaan hadan idinkii idin go'dan banaana ku soo turteen oo waa macna waxas camal waa sheekooyinka laga
gaangister yaalkii waay oo maamadiina inii horseedoos magaceeda laki idinkan aad ku raacdeen maya waxaa la rabaa dadka walaalaha ah oo marba isweheshaday oo hal meel degan oo warkiina ay yeeshay inaa idinkan issoo dhaweysin oo garab isiisin qofkii qaldana yac la yiraahdo marka garoobnimada nin walba taalaa naag walba oo ninka dambe nin masaajid ee berka maa loo furi karaa nin bini aadan leh waxaan wax weyn ma aha marka tii saddexaada kusoo hirtay maanta waa loo heshiiyey gabadhan magaceedii kaftan waxaa haddana soo hadle dhegeyso wacan aad dhegeysa doontiin dumaashadeeda oo iyadana handadaad iyo qaylo iyo caayitin iyo wax iskugu dareyso marka ninkan iyo iido mar hore isfureen waxaa la dhahay farax kaftanaa soo caaytantay farax kaftan heestaas ay kusoo caaytamayso ee ninkeeda ku haysato mar hore soo dirtay inay maanta gabdhaha ay soo bahaysato iyadana maanta ay soo caaytanto oo tiraahdo saanan kuu sameynaa sare joogan kaa marjinaa kidan kaa yeela inaa adi maanta xaafadan kula degana ay waxaas aad ku handadid looma baahno waxaa saas u yeeloosin dhan waa nila yaqaanaa reer xamarnimada ku baxsoosin fahmaysin marka tawfiiq alaana waafajiyo ninkii dad marji doon ilaaha okii la marji doonan ilaaha yaqaan insha allah marka waxaa yidhi ishiis la arkaa oo ishiis lagu tumaa iyadaa tolkeeda iyo tiradeeda niiga dhex baxda oo nii raacday maantana banaanku soo ganteen oo isku dhidhiiboosin balooni camal isku xishooda soomaali weyne waxaas waa caadadiin oo camal aad ku haysiinaa meelaha intaad taagantiina xasbi allah nimcan wakiil marka daawasha waxaan dumaashadiina heerka ee la gaartay magaceeda farax kaftan waxaa layidhi walaalkaa isku muhubtida dumaashadaada ha iska haleyn aniga saasaa aaminsanahay marka beriga ku noqon karaa way heshii karaan afkee maanta ku caysay ku ammaani kartaa marka dumaashii adig intee eradaas waa kaa xiranta bis waa ku dhammaad saaxiibe haddana daawasho waxaan asxaabteedii qaaliga insha allah meeshaan maanta waxaa u soo galay naag la yiraaho yaa farax kaftane haddaa jiiftidna fadhiiso haddaa fadhisidna istaag waxaan ku weydiinaa cabdixamiid maxamed cilmi maxaa ku daba dhigay waad kala tagteen reeraa yeelatay ilaahay ku aqoonsanaaw no mise ninka waxaad u guursatay maxlal iyo cabdixamiid ha kugu jeclaado haddaas gurbaanka meel qaladaa ka garaacoysaa kowdheh cabdixamiidna diyaarkuuma aha goomaartaya galaangalataya samaawaadka isku dhegtaya horta diyaarkuuma aha anoo tii cabdixamiid kaaga aamusnaay aad waxaa soo gasha haddana xaawakeen aad dhucey ku tilmaameen adiga dhan horta mis aragtay gacno yaryar lugo yaryar calool naase waaweyn mis aragta horta dadaa caayhee horta kan ku qabana waa goomaaradan aad goomaaraysidoo wax ka fahmi lahay yaa balaayaa kuu sacbisee carabkiis dheer calool qabiid calafkeyga maas celi karaaye ciyaal suuq oo caan ahee adaa caane oo gaxbanimo ku caanbaxday kowdhe oo sawiradaada meel walba yaalaa ha igu kalifin inaa keena ma fahantay yaa igaarkan walaalkeeya ka deg woo kaa aamus ilaa heese oo leeyaha magacaada ku qorata yaa kaa daba yimid yaa kaa daba juuqay walba annagaa social media inoo lagu soo diraa miyaa farax kaftana goomaaroyso farax kaftama caytamoyso maraxaa kiin ku dhegantahay abaashimaa saas u cilbaxda horta adiga dhanba fanka 5 biloodii baraa ku jirtaay yaa hadda dhow markaa national insurance numberka qaadataa ilbaxday arabta social media laga qayliyaa maqashamiya indhahan kala baxa aan ima taqaanin nooradkan kula deganay magacayga munaal lahaa ma fahant cid walba itaqaan isoo raadso ifaamoysa qof walba itaqaan qof walbo ifaamoysa wax ma ku sheega cabdixamiid damba afka soo suree rorogan ka wasa roroga cid aan kuugu aabayeelayna mala ifaamoysa baladka edab kumar haddaa kumar weysa ma aragtay ani adi Chelsea Arsenal u dheelayna cabdixamiid meeloo taagaya goomaarka damba isoo gaaray dankan kuugu dhufaani waa ku sheegoya ka foq cunugan nin rag fiirinaya xawkiin waa naag la yaqaano waa naag Soomaalida ixtiraamto waa naag fanka kaaga soo horeysay shalaya timid xiriga lagu qabaa miya Snapchat waa dhamaysa Facebook waa dhamaysa YouTube u dhacda hadda waxaan ku arkay asbuuc ka hor midaas oo geliso 400 qof ku fiirsad hatta dadka xiisa badan kuma hayaan because naag ciyaal suuqada tahay naag kalabada tahay naagaana diin lahayn tahay naagaana nasab eena tahay ma fahantay yaa
cabdixamiid maxamed cilmi anaa walaashiisa magaceygaa layidhaahaa muna maxamed cilmi dambe cabdixamiida afka soo suree ani konton adigana konton asxaabteeda soomaali weyne waa soo aragteen dumaashadiina heerka ee la gaartay farax kaftan marka astafurlah alcadiim waxaas waxa waaye wixii dhow celinta xamar ee soo baxaanka ah wiil iyo gabdhaba isku haruufi jireen isku baabi'iyeen iyo naagaha markii nin aska dhexeeyeen saasoo kale isku xaagtaan isku cunaan kolley ciddaan wixii soo isku haastaan heerkan kala gaarsiina dib dambe waa soo bixi doontaa insha allah ilaan ummadii laqdabo ku heshiisi lilaahiya ku kala baxaan si nadiifaa lagu kala baxaa liaan laqdabaa markii hore lagu heshiiyey in faadumiin la baabi'iyo ay ku heshiisnaayeen saddexdoodaba haddana waa arki doonaa wuxuu ku dhammaan doonta insha allah ay dumaashiye walaalka ama isku hubtida dumaashadaha iska xumeen mar walba saasaan ku dhahaynaa dad waaweynaa tihiin fanaaniinaa tihiin dadkii lagu daya lahaa oo waddanka horseed hormuud u ahaayaa tihiin marka inaa tiirtii kale macnaa ood iscuntiin waa laga fiican yahay horta qofka markuu nasib yahay oo si nadiif ah oo maanta qof soomaali dhalad ah nooc walba qabiilba kasoo jeeday oo niyadiisa soomaalinimada ay ku weyn tahay ilaa heerka qofka markii aragtid inas istataagaya oo adduunyada iska qaaqaada isku mudaa cirka iyo dhulka inas dhexdooda ku jiro kaas faraa ku jirta ka leexa marka waxaa fiican waxyaalaha qaar inaa idinka ka sheekaysatiin sinaagu weynaatiin 45 jir 5 daqa u socotiin 50 jir marka inaa hadda aad ilma camal isku qabsatiin waa laga fiican yahay naagan makeup iyo bolbar soo marsan oo wajigeed 30 plastic soo saarin wax ma soo joogsato Instagram ma timaado YouTube ma soo istaagto si nadiif laaka dilo yimaa qof walba ay wajigeed isku saarin ee baa marka dad yar ma tihiin Instagram ka soo marto oo idoo intaasoo bolbari intaasoo cream soo marsanin ma tagayso Instagram-ka isku soo qurxisaa waa la siqaana dad waa weynaatihiin dowladda siyaad bari wixii ka horeeyay waay xishooda naga dhaafa istruubada ku haysiin gabadhan walaashin aad geeska gelinaysiin waa laga fiicanya dumaashada daba looma diidaa la yidhi intii la dayaa la damuuqsada isku shiix ada dumaashaa tahay walaalkaaga dhinaciisa ka hadlin beriyay heshii karaan raal aha oo dhe walaashaada heshiiya wax sheeka mar hore ahaay inaa maanta oo farax kaftan iyo laka aad soo dugaashato adna aad kusoo biirtod caada meesha ka bilaahad waa laga fiicaya ida dee walaalkaaga caaysa walaalkaaga ida nololaa dhexmare nin walbo walaalkiis dad cayn adaada ninka ku qabo dumaashiye ninka adig ku qabo haddii walaashiisa adig sanka kula soo gasho maxaa dhehe naani kuma kasaay walaalkaaga aniga aqaanaa wax naga dhexeeya anii ninkaasee noo taalaa jawaabtaaba saas ma fahmay inaad adi soo gasho sare joogan kaa wasaa iyo kidaan ku yeela sheeka mooryaannim xamar lahaad ceeb waxyaalaha qaar inaa kaadashiin waa ceeb haddii wax la wasaa idil joojinaa idil jiifinayba asay u taalaa iyagaa waxa marashaa markii israacay aad ma ogeed waa maya hadda inaad soo dhex gashid waa laga fiican yahay ogo haddii reerka islaameed oo ninkii naagta adiga aad counter ku noqotid kaaga adigna kugu soo dumaayo markaad kan adiga aad filtaraysid oo bambaysid kaaga adigana kugu soo fakanayo taasna ogaawyaa waxaa samaynayso aadna berika maalina ku qaban doontaa lakiyay adigana dadkan shalay adaa isku keenta maantana waa isku dirtee berina adiga xaawkiinaan ii sugeynaa insha allah maanta farax waa ku daysi beri xaawkiinaan sugeyna haddana waxaa ka sheegi doontaa la arkaa insha allah kii dhucee iyo kii dhala ehba kole joogiina qof walba da'diisa qof walba feeskiisa qof walba dhalashadiisa runta kul waa lahaaya soomaali waa ka dherigsan tahay fahmaysiin waxa oo hadda la baranaayo oo isku waxeenaayo nyacnya looma baanaawo weynaatiin awalba waxaad ku jirtiin fisqi iyo taqwo la-aan iyo bilaa macna aad isku haysatiin gabadhan reerkeed markii inta ka imaanays reerkeeda waa dhisnaa idinkaa ka dumiyeen ninkeedan idinkaa ku diri haddana hortiina allah niga siiyo iyadana waxay ku hadlayso waa qalad farax kaftantana way edab daran tahay inta markay ka guuraysaaba la dhahay landa ma tagtaa lahaa walaa nin ku haay sidii ay noqotay ka waran nin ku haay guurso 100 guurso 40 guurso adeeg ku taala nin ku furi magaceeda farax inay haddana ee goomaarto ee caay usoo duubta idin waa laga fiican yahay waaba ku furi waa kala tagteen ka heer maxaa caaytamee mise wiil rajaa kugu jirto faraxaan haystaa farax haddii raja ee kugu jirto ninka caadi u waco tartiib la sheekayso gooni u bixi laakiin hasoo caaytame Instagram ilma yaryaraa ku jiraan 15 jir 17 jir 18 jiraa buuxaan
reekonta mee intay u socotay idinka marka inaa isku caysin snapchat iyo instagram iyo anagana maanta youtubekaan dhigayna si fiicna idin fadeexiyeyna seewaay leanna levelkaaga adig snapchat ma fadhiya levelkaaga youtube was fadhiya youtube waa lagaa sheegaa saaxiibe kulligiinaba cid macnaa cid kale xigsayeysa male farax way gardaran tahay magaceedii xaawkiin way gardaran tahay oo laki inay soo dirto farax ku duush qalad waaye maxaa kuu sayid gabadhan dumaashada oo iidan walaalkeeda usoo danaaneys horta maxay tahay ilma camal danaan naag weemoo ninka nin weemoo naagtan shal asaa guursada shukaasada maxaa idin haaya waa la sheegay soomaali waxaa lihi weliba ingiriiska naagaha joogaan kulli garooba single mother waa kulligood out waa naagta maanta ani farxiya hadda inta ka baxano ninkeyga wato iga dhigahaya waxay u naxayaan male ama beeha kaaga dhig ama beri markusku furintoo kale erid usoo fadhiisaysaa guursayso cudurkaasaa jiro single mother maraykan iyo london acuudu billahi min shaytaan rajiim anaga holan diin joogna alxamdulilah waxaas ma qabno nin walba naagtiis iimiis iimaankiis oo ku qabaa laakiin fanaan awalba xamareeba saas isku yeeli jireene inma isku dayna inta beeseb u heleenba inay isku caboo iyo sinifaad iyo jaad cunoo iyo adduunya naagol tadoo cunuge waa farxii fiska tadoo cunugee kasoo tagtay kulli waa ogtiin soomaalida naag walba ilmeheeday ka tagoosa calaashaan eesh calaashaan ziftanimada ay ku jiraan reer london iyagana ay ordayaan xasbi allah nimca wakiil ilaahaa niga magangal haddana waxaan leenahay reer konton meeye naagaha konton jirka faraha iska qaadaan isku xishooda sawiradiinii hore dib ugu naqda kareemkii maxaa la dhahaa bootarkii iyo waxaan isku turkeynay intaa dhaaftid soo qaada miraayad caadi u joogso da'daada qiyaas xilligii toobada ku jirtay iyo tawxiidka aad qabsa laheedeen xilli aad iscacaysay marba la joogaba abaa dumaashiyey adigana sidoo kale walaalkaaga aakhir dhinacaaga ma gelaa ha cayso asagana ha soo caayo iiday u taalaa adig ka bax meesha briigka ahaa qof banaanka taagan ka ahaa mar walba adi ma jeclid inay dumaashadaada ku caysa runta taas waa ma fahmaysiin insha allah kole aniga qof normaalan u hadlay qof ciddii xanaagta raal ha iga ahaato ciddii macnaa oo aniga igu level ah oo ra'yiga ani aan haasto oo haayo xilligay fanka daba ordaayinoo maanta xabadka la fifiidaya dadka waa moodeen ilmo yaraa soo baxeen goobta ka xarooda idinka isdhiiba tusbaxaaga qaada saligaaga fisa iimaankaaga sugo kaste insha allah intii igu ra'yi ahna waa mahadsantiin soo dhaweynaa inta samaha jeclaan soo dhaweynaa marka kumentigana waa kaas kumenta caadi ha iska ahaado khayr iyo waxaan isku ognaa insha allah asxaabtaan oo maanta is cunayso idinku soo biirtane dhexdooda biyo qabow allah ku shubo dadkii heshiiya laakiin intay fanba ku dhex jiraan ma heshiinayaan habeenkii cawaaya maalintii waa isku falaadayaan xasbi allah nimca wakiil amaana allah maanta rasuul